waxyaabo kala duwan oo dhinaca ganacsiga iyo wax soo saarka la xidhiidha. wasiirka xigeenka wasaaradda ganacsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta xadhiga ka jaray carwo ganacsi oo laga furay magaalada Boorama. carwadani ganacsi oo lagu soo bandhigay alaabooyinka ay ku caan baxday Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ka soo qayb galay wasiiro, maamulka degmada, salaadiin iyo dadweyne aad u tiro badan. ugu horeynta ayaa waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha carwada ganacsiga koowaad ee magaalada Boorama, Cabdishakuur Ismaaciil Muumin Aare, isagoo ka hadlayna waxa uu yiri caasimadaha kaliya dadkii ma joogaan ee ganacsataduna wax loo baahan yahay wadanka dhan in la gaaray maxaa laga damcay goboladii kale markaa iyo ganacsatadii iyo furfuritaankeedii marka waxaan isku nidhi inaan idhaahno ganacsatadii ha la isdhex galo gobolada ha geeyo customers cusub ha la helo wajiyo cusub ha la helo ganacsigii kor ha u qaadmo wadankii ha isla jaan qaado min bari ilaa galbeed sidaa daraaddeed waxaa timid inaan idhaan carwadii ugu horreysay maadaama gobolka wadaleeyahay magaalada ku soo xigta caasimadda waxaan nidhi inaan maanta Boorama lagu qabto carwada la iskugu yimaado oo lagu casuumo dhammaan ganacsatada ka kala yimiday gobolada Soomaaliland. soo kale waxa halkaasi ka hadlay Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dawal iyo Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar iyagoo ka hadlayna waxay carabka ku dhifteen. cid kasto halkan maanta timidayna waa soo dhaweynaa qiimo gaarana waad noogu fadhidaan shirkadaha yimiday dadka kala yimiday qiimo gaara وسبوينا دي أيام نقول فلنا وحنا رجعنا إن نديب النقطة سيد كل سقال بقول أفرتين نديب النقطة هر الله سوى ده هوش هيدا لدردر قلينا دي هذا رجعنا وحنكون بورنا وحسكون درس بقى هو هر المركة أي كشرة وحنا رجعنا سنة عطبنا قبل هذا كلام إلا قال قال دونه وأرن هرله وهرمر موغدا ومالن فرحد وين له إنه عروي جاي المغرب والعاصمة الوقفتها إنه لصور دعيو oo maanta aynu ku qabanno magaalada Boorama sharaf way noo tahay. kaloo halkaasi ka hadlay duqa degmada Boorama Suleeman Xasan Xadi isagoo ka hadlayna waxa uu carabka ku dhiftay bariyaha dambe tahriibta iyo hadal haynta xagan galbeedka dad xaga u yaacay iyo war wax jira ma jiraan dadka kuwaasina waa soo noqonayaan ganacsi baynu ku tartamaynaa waxaas waynu ka baxnay cid horumar iyo nabad carqaladeynaysan cid alla cid gacan ku siinaysa ma jirto abayaraad waxaanu diyaar u nahay maanta inaan nabadda u horseedno dadka. waxa kaloo halkaasi ka hadlay wasiirka xiriirka golayaasha Cali Xaamud Jibriil iyo wasiirka beeraha Professor Faarax Cilmi Geedoole, wasiirka xigeenka wasaaradda ganacsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland Bashiir Cabdi Xariir iyagoo ka hadlayna waxa ay yiraahdeen waxay kaloo ay sameynaysaa isdhexgalka shacbiga Soomaaliland oo bulsho kala qoqoban oo meelo kala wada joogtay markuu kiilaas caanood iyo kii burcawal ka yimaado iyo kii berbera waxay noqonaysaa inaguna marka dambe carwada ee lagu qabanay laas caanood ama burcamo berbera inay reeboor mana ay ka qayb galaan taas waxay keenaysaa xudan lahaansho iyo isdhexgal iyo isbarasho iyo wanaag iyo wadajir halka ka wada bilaama waana siyaasadda dawladda ayna ummaddu isdhex gasho oo ay hagaajiso wax kasta oo la samaynayo warshadaha aan wada yeelan tijaarteenu ha wada yeeshaan oo kalaas aanood jooga iyo kasaylac joogaaba waxa ku darsadaan si wadankaanu wada ilaashano iyo ka burciyo ka Hargeysa joogaaba si wax xoog isdhexgalkeena iyo wax wada lahaasheenu markuu weynaado waxa weynaanaya sidaan wadankeena u ilaashan lahayn. wasaaradda ganacsigu xilka saaran waxa uu yahay inay diyaariso shuruucdii fududeynaysay ganacsiga shuruucdii u fududeynaysay maalgashiga oo ah wax cusub oo hadda madaxweynuhu ku kordhiyay wasaaradda ganacsiga intii la kordhiyana waxa inoo yimi kambaniyo aad u fara badan oo maalgashi u socda fadiilatu Axmed Maxamed Maxamuud Aadan Siraayo annagu waxaan nahay berbera boort marketingka waxaan aad ugu mahadnaqanaa bulshada Boorama oo yar iyo weynba aad noo soo dhaweeyay Adarsan Foundation annagoo xubinkii ka macallimiintii maamulkayga meeshay wada joogaan Marwa Aamina Waris waxaan gudoonsiinaynaa alaabta hidiye dhaqanka waxaan leenahay Marwa naga gudoon waxaan gudoonsiinaynaa Marwada labaadna Raxma Xaaji Maxamed Suldaan naga gudoon baan leenahay Marwo carwadii baa la furay oo maxay qof waliba soo bandhigaya maxay haydeen wixii uu hayu iibinayay ma sha Allah wixii aan hayno waan keenay cabaayadihii oo dharkii ciyaalkan keenay
isku soo wada duubo carwadani waxay noqonaysaa tii ugu horeysay ganacsatada Soomaaliland ay ku soo bandhigaan alaabaha ay iibinayaan waa Fatxiya Laki TV-ga qaranka magaalada Boorama wasiirka wasaaradda caafimaadka